dhulkii gacan kuma jiro gumaysta ayaa hantiyey go'aanka Itoobiya gidiga lagu maamulaa haddii aan laga gigelin amaan guluf laga horgeyn gabood maran baa xigtay Soomaaliya garadan taayo garaad iyo xoog midee geerida waa loo dhashay gudnimo lama qaayibay gaf iyo diid waxaan ku qaban afarta bayna jaho maamul kasta oo Soomaaliya ka jira gabraa ka taliyay Itoobiya taasina laba cali ismu weydiin qof inkiri karaan ma jiro dadku xilliga jaahilka uu ahaa waxba uusan arki karin waxba aysan sheegi karin ma aan ummadda waa il baxday waxba la bartay dhibkii baa ka batay qofku dadku wada siyaasi dawladda qaar waxay ku leeyihiin maxaa annaga dawladaha dadku maxay u hadlayaan bay leeyihiin laakiin dadku way hadlayaan waxa weeye dadku way hadlayaan waxay u jeedaan bay ka hadlayaan waxaysan rabin bay diidayaan waxaysan doonayn bay ayay runtii shacabka gacanta iska saarayaan macnuhu waxa weeyaan marka waxa weeye ujeedada Itoobiya ay Soomaaliya ka leedahay haddii anigu horta siyaasi ma laakiin waxaan rabaa waxaan garanaynaa baan ognahay inaan sheegno waxa weeye micnaha ujeedada Itoobiya ay meeshan u timaado marka waxa weeyaan runtii waxaan waa foolxumo waa magac daro waa dawladda hadda maqashideeda dawladda sideedaba sharafta dadka iyo dalka iyo diinta dhowrta dawladdu maaha inay iska jirto kaliya magac ay iska leedahay ma marka waxa weeye ala kulli xaal gabra meel fog baa laga soo diray waana arrin fog waa arrin milil ilaa Hayle Salaase ka socoto weeye in dhulka kan sababta Hayle Salaase afkiisa weligii laga maqan Soomaaliya wuxuu dhigi jiray walaalahana banaadir maalin bay dhulkooda ku soo noqon doonaan ayuu dhigi jiray khudbadii ugu dambeysay oo dir dhaba ku khudbeeyay sidaas oo laha dawlad dhisan oo meel ilaa oo gabaahira loo dhiibay ayaan mucaarad ku noqonayaa oo waxaan la baxayaa magac cajiiba oo dadka soo jiita war dawladdan dadka shacabka Soomaaliyeed ay doorashadiisa iyo dareenkooda ayay ku timi waxaan rajaynaynaa oo aan isleenahay inay dawlad fiican noqoto hadday noqon weydana annagay noo taallaa inaan ka soo horjeesano laakiin nin jaga doonaya oo jaga markuu waayay ama meesha iska waayay doonaya inuu dadka magaranaysaa soo magoogo oo aan ognahay inuu yahay jawaasiis u shaqeeya Itoobiya iyo Kenya u shaqeeya annagu warkiisa ma dhageysanayno ummadda Soomaalida ma dhageysanayso dadka Soomaaliyeed shacabkuna ma dhageysanayaan dawladdaana hadday xumaato annagoo shacaba ayaa diidayna adinku ma diidi kartaan annaga diidayna annaga dareenkayaga lagu keenay ay ku samaysantay challenge baan siinaynaa waqti baan siinaynaa nin jawaasiisa oo Itoobiya Kenya u shaqeeyana ka yeelmayno waa mid baana idin ognahay in la soconnaa maxkamad baana la soo taagi doonaa aqalka dambe xilkana waa la ka qaadi doonaa waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha baarlamaanka inuu xilka midnad u ka qaado sababtu waxa weeye suurtagal ma noqon karto dawlad hadda la dhoobayo dibadaha iyo adduunka looga yeerayo oo reer European-ki iyo Mareykanka ay doonayaan iyo Carabu inay habeeyaan ayaana moosho ka soo ogeynaa cid ka yeelaysa ma jirto gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa in uu maxkamad soo taago hadduu soo taagina mid walba farta uu ku fuuqo dadka shacabkan uu u sheego si ay ninkaas dhagax ugu dilaan waa maasantii